kusoo dhawaada daawadayaal wararkii u dambeeyay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh ee ku dhumaaleysta gobolka bari ee Puntland sidoo kale waxaan idin hayaa warbixin ku saabsan gobolada Puntland oo loolan ugu jira mid walba sidoo kaalinta koowaad uga gali lahaa garab istaaga loo muujinayo ciidamada difaaca Puntland ee dagaalka kula jira kooxaha Daesh intaan warbixinta kula wadaagin waxa ka codsanaya in aad YouTube-ka ku soo biirto oo subscribe dhahdo sidoo kalena muuqaalkan like taadho gambalelkana furato si ay ku soo gaaraan muuqaalada maalinlaha ah ee aan halkan ku soo gudbino hadii aan ku bilaabo ciidamada difaaca Puntland ayaa si toos ah u bilaabay weerarada ay ku beegsanayaan kooxda Daesh ee ku dhumaaleysta gobolka bari ee Puntland wararku waxay sheegayaan in ka badan 200 kilomitir inay gudaha u galeen ciidamada difaaca Puntland ee buuraleyda gobolka bari halkaas oo ay fariisimo u tahay kooxda Daesh ee ka dagaalanta gobolka bari ee Puntland sidoo kale waxay wararku sheegayaan in asbuucii la soo dhaafay ciidamada Puntland ay weerar dhanka cirka ah ku qaadeen kooxda Daesh halkaasna ay xubno kooxda kamid ah ay ku dileen sidoo kale wararku waxay sheegayaan in madaxdii u sarsareysay kooxda Daesh ee ku sugan gobolka bari ee Puntland ay halkaas iska baxeen isla markaasna ay aadeen dalal kale waxa guud ahaan la yareeyay helidda xogta ku saabsan dagaalka ka socda buuraleyda gobolka bari ee dhawaan amar ka soo baxay Puntland ayaa la sheegay in guud ahaan la yareeyo xogta laga heli karo dagaalka ka socda buuraleyda gobolka bari ee Puntland dhanka kale gobolada Puntland ayaa loolan ugu jira sidii mid walba uu kaalinta koowaad uga gali lahaa ama uu noqon lahaa midka ku suntan garab istaaga ciidamada difaaca Puntland ee ka dagaalamaya gobolka bari ee Puntland gobolada Karkaar iyo Mudug ayaa ah gobolada ilaa hadda ugu horeeya ee garab istaaga ciidamada difaaca Puntland gobolka Karkaar ayaa noqday gobolkii ugu horeeyay in ka badan 500 oo neef oo ari ah ku wareejiyay ciidamada difaaca Puntland ee ka dagaalamaya gobolka bari ee Puntland sidoo kale gobolka Karkaar ayaa haweenkoodu waxay diyaarinayaan hilib shiilan bur iyo dhar ay ku garab istaagaan ciidamada difaaca Puntland qaar ka mid ah haweenka xaafadaha magaalada Qardho oo warbaahinta la hadlaya sheegay inay ciidamadooda u diyaarinayaan hilib shiilan dhar iyo wax walba ay ku garab istaagi karaan waxaanu nahay shacab weynaha ku sugan magaalada Qardho waxaanu diyaar u nahay gaar ahaan xaafadda Shimbiraale waxaan diyaar u nahay oo aanu taageeraynaa oo garab siinaynaa oo xilliga u soo taaganahay kowdi duhurnimo baa istaagnay wali aankana waa taaganahay waxaanu sameeynaynaa cuntooyin kala duwan sida burka biskudkii sabaayadii hilibkii qaybo naga mid ah waxay sameynayaan dharkii bay diyaarinayaan oo hadirta xilliga ku maqan yihiin annaguna halkan baan joognaa waxyaalo badan qaybna waa diyaarinay qaybna waa diyaarinaynaa waxaanu hiil iyo hool garab taaganahay ciidankayaga waxaanu difaacaynaa ciidankayaga dalkayaga dawladayada intaba garab baa siinaynaa diyaar baanu u nahay inaanu cadawga nagu soo duulay oo dalalka kala duwan nooga yimaaday aanu meel uga soo wada jeensano madaxweynahayaga waa ku taageeraynaa shacabkayaga waa ku taageeraynaa ciidankayaga waa ku taageeraynaa waxa maqlaayay oo kaleeto nin la yiraahdo Idris Bebe oo wuxuu ku hayaa $30 baa la siiyay adeer 30 wax bixinaya waa sarkaaladayada madaxweynaha iyaguna ka badan buu bixinayaa ma fahantay waxaan leeyahay dadka nagu soo duulay noo soo raacayo oo hadallada iyo la garab taagan iyo dhaliilaha qarsoon kulli mid kasta oo dawladayada iyo dadka iyaga wuxuu ku yahay taa'ib annaguna waa taa'ib baan ku nahay waan iska celinaynaa rag iyo dumarna meel baa uga soo joognaa assalaamu calaykum waraxmatullaah halkan waxa weeye waxa lagu sameynayaa sabaayad iyo hilib dharna waa diyaarinaynaa waxaanu garab taaganahay ciidamadayada xoreynaya Daesh waxaanu leenahay guuleysta hil iyo hoobaanu la garab taaganahay waxaanu hadda saacada u soo jeednaa oo maxaan ku iraahdaa waxaan saacada u soo jeednaa guuraha ah hadeer waa 3 saaciyo waxaanu u soo jeednaa oo isugu nimi shacabka Shimbiraalaanu nahay magaalada qaybaheeda kala duwan waa lagu sameynayaa marka waxaanu leenahay guuleystaanu leenahay garabkiinaanu taagana idin kama hari doono inta tan halgan ku ahaan mayo waxa weeye mar walba waanu idin garab taagana hadii Allah awood dhali garto halkan waa xaafadda Shimbiraale hoolka Shimbiraale ee bulshada weeye waxa weeye hawshii baanu haynaa naloo diray ama aanu anagu isu diray waxa weeye shacabka iyaga hadaanu nahay shacabka Shimbiraale waa ku garab taaganahay dawladayada madaxweynaha iyaga insha Allah guul baanu u rajaynaynaa in ilaahay cadawga ka qabto
guul baanu rajaynaynaa gudoomiyaha iyaga qaal waxaanu leenahay allaha ku guuleeyo annaguna waanu ku garab taagannahay insha allah saasaanu leenahay waxaan joogaanaa magaalada Qardho gobolka Karkaar waxaan bogaadinaynaa ciidankeena waan garab taaganahay hiliyaho waa la garab taaganahay dhiig waan u shubaynaa caanaha waa sii dhiibaynaa hilibka oodkac waa sii dhiibaynaa